كيف أساس إلهي رح مكاقور كالكال والجي رح مكاقور كنو أنت معنا لفتنا أنت عجبتن tani waa dhibane Xuriya Maxamed Maxamuud waxay la xanuunsanaysaa xanuunkaasiba lugta midig kadib markii sida ay sheegtay hooyo Xawa Xasan Muxudiin in gabadheeda Xuriyo iyadoo jiko ugu jirta sayigeeda oo hadda ay kala tageen ay mar qura ka dhacday istaaga sidaasina ay u jabtay lugta midig sanadii 2016 ku dhawaad muddo 4 sano ayay la xanuunsanaysaa xanuunkan xanuunkeeda bishii May 16 ayay soo dhul dhacday ilaa iminka waan haynaa meel walba waa geynay isbitaal walba waa geynay waxba loogama qaban karo Soomaaliya dibadda mooyee wax kale ma laha xanuunkeeda iyo rafaadkeeda iyo dhibkeeda waxaan soo marnay alxamdulillah haatan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay si ka fiican oo caafimaad siiyo goorta ku bilaabay 20 May ku bilaabmay 2016 ku bilaabmay ilaa haatan iminka xanuunkii wuu hayaa habeenii maalin saan baan u haynaa awadi hadaan qaadayn waa oynay hadaan rogay way oynaysaa hadaan soo qaaday way oynaysaa hadaan soo fariisinay way oynaysaa dhibaato weyn ayaan ku jirnaa dhowr xarumood oo caafimaad oo ku yaala Muqdisho ayay geeyeen waalidiinta Xuriyo balse dhaqaatiirtii kala duwanaa ay la kulmeen ayaa ku wargeliyay in gabadhooda dalka gudihiisa wax looga qaban karin arintaasi oo fajac ay walwal ku abuurtay waalidiinta Xuriyo maadaama aysan haysan qarashaadkii gabadhooda ay ku geyn lahaayeen dalka dibadiisa geesanay baan geeyay waxaan geeyay Digfeer waxaan geeyay Soomaali Suudanis meel walba geeyay isbitaal goobaha ku yaalan geeyay caafimaadka waxba kama qaban karno dibadda mooyee dibaddana awood u maayn xanuunka haya gabadhan koodii hore iska fiicneed uur bay lahayd wiil baa guursaday uur yar bay ku dhashay uurkii barashadkii qoorti baa ka dhacay uurkii isaga cunugiyo meedha laga dhaliyay iyadii 3 bilood ogaal la'aan bay meel jiiftay 3 bilood ogaal la'aantay meel jiiftay saan ku hayay Ilaahay saan tabagalay quraanka u saareynay xoogaa in yar way noo soo hadashay kadib neerfa iyo waxba laga sheegay waan daaweynay wax waa oga awoodi weyn ku dhawaad muddo 3 sano 4 sano baa wax yar ka dhiman 5 bilood baa ka dhiman umaleynaa marka saas bay xanuunsan tahay waan qaadan laanahay dabadeed saas jiran tahay Xuriyo waa gabar mustaqbal iyo rajo wanaagsan ka lahayd nolosha balse waqtigii waayaha adduunka ayaa cilay maadaama qoyskeedu aysan haysan qarashaadkii gabadhooda ay ku daweyn lahaayeen ilaah baa caafimaadka bixiye Xuriyo oo aan la sheekaystay ayaa si qiiro leh waxay u sharaxaysaa xanuunkan asiibay iyadoo bulshooyinka Soomaaliyeed ka codsanaysa inay soo caawiyaan waxaa ka codsan Soomaali meel walba joogta inay caawiso aan gabar masaakiin oo walaasheedan ahay ana iska xanuunsanahay meel ma gaari karo marba marka tunjile saara dhibaan qaba waa oonaya iska xanuunsanahay inta macna way kala jabsan tahay xanuunkaas ayaa Soomaali meel walba joogta waxaa ka codsanaya inay caawiyo mar walba caawiyana ka codsanaya haddii in maqlaan dal iyo dibadda joogaanbo waa ka codsanaya intaas ay ka soo lugtaana ajabnaa la isbitaal xameel waa leegay kalkaal meel walba Digfeer isbitaalka uu soo sokay waa leegay xataa 100% waxa ka qaban karnaana ee lugtasaan u taagnay laakiin soo laabmayso inkastoo oo la qaad dhigo waa mar walba qarashan iga baxay ma ii tareeyaan daani kale baan waxaan gurigeeda cali wixii Ilaahay keena qaba isku joogaada Digfeer saas Ilaahay wax ma ka qaban kalkaal waa leegay wax ma ka qaban karno أنت معنا لفتنا أنت عجبتن مدح دولة الصومالية حق قناع ستة وحق عسلايا إن عاوية دل مال إيجوغا صدقنا بهيو أبقي الوليا صدقنا بهيو أبقي الوليا كفتاني تبيانا بقول كاتريسان ليبا وكليسان كفتاني تبيانا بقول كاتريسان ليبا وكليسان haddaba diinteena suubani dhaqankeena ayaa ina faraya inaan caawino dadka jilicsan ee la midka ah Xuriyo ilaah baa caafimaadka bixiye walaalka muslimka oo caawi qoyska Xuriyo si gabadhooda ay u hesho caafimaad
wuxuu ilaahay kaaga soo qaada ugu hagaaji telefoonka kaaga muuqanaya shaashadda. Samiir Cabdirasaaq Umar, wararka warbaahinta Star, magaalada caasimadda Muqdisho.